saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan ku suganahay hawdka gobolka Togdheer gaar ahaan xuduudka Baliweynta halkan aan joogaa waa weerka Ceelmadoobe ayaan joogaa inta nimka aan joogaa waxa u dhaxaysaa Heere Maxamed Ugaas Talabuur iyo Dharyaley waxa la yiraahdaa mareerka Ceelmadoobe waa dhul daaqsimeed ay xooluhu aad iyo aad ugu dhaqan yihiin halkan imika aan joogo waxa daaqaya isla markaana jooga geel aad iyo aad u far badan barwaaqo ayaa ka dhacday barwaaqada taalo darteed dhammaan deegaanada aan roobab ka diinay waqooyiga gobolka Togdheer oo dhan ayaa laga soo guuray dadkuna halkan ayuu isugu yimi halkan nimca ayaa taala dhulku waa dhul barwaaqo koobka caanaha ee galaaska loo yaqaan isla markaana weyn koombada waxa la siiyaa 3,000 oo shilin halka uu jabnaan shii ka gaaray geelan ayaanu yimi kaan saaxib geelan baanu yimi ninkan baa geelan la jooga magaca walaal Yusuf geelan ka soo rarta halka Baliweyn iyo dhaxaysa Maxamed Ugaas iyo Baliweyn dhexdooda ka soo rarta marka ma kaliyaaba saxaafadii oo dhan baa soo guurtay ma xaafadii oo halka xaafadii degtay halka ateenka Dharyaley ateenka Dharyaley ma ka xagaa ka soo muuqda maalka sid geenaysa ilaa goormaad ka xaynaysa hada ma dhow halkan dhow ayadan garayo ood weey ayad geenaysa ateenka ka muuqda meeyada dhowdba wuu ka sokeeyay reer haye wuu ka sokeeyay balka waran geela imka roobku halkan buu ku helay mise halkan buu ku helay madriga imka geelu ana miibsan imsa koobka siisaa 5,000 baa halkan laga siiya caana geelin intee leegi dad intee leeg balkan jooga way fara badan haye aad bay hadda geelu markuu sidoo kale daaqay maxaa la yiraahdaa mayrac baa la yiraahdaa qoorbo markuu mayrac dhameystaa duubaysa adigu maqrib nugiis mee geela waa ka reebo guriga jooga guriga laga reebo markaas aad caano badan looga helo intee oo sanad geel raacaysi in badan si fiican dayacowga imku ku dhayeeshay ma sha Allah khayr ma ku rajeynay arbiyo uga soo saar gaariga ninka ma halaada biyo soo saar هذا برشة ورقصنا سعيد بالله هدي لايك كده يوتيوب عد فلوجز اللي ده ممكن سوق لي خالي مكتهاي ممكن سوق لي يا سماحة هي ساعة برشة ورقصة هاي saaka waxaan joognaa xirdi geela oo garayooda garayooda waxay ku taalaabo tuulada Dharyaley ka xigtaa waqooyi galbeed hasha hadaan ka warramo waayeed hashan waxa weeye hooyadii geela waa 9 jir 9 jir weeye lixda daadaas wadadii dubeysa waa xidhal lix bay dhashay 5 qaalmood iyo qaarankaas dhashay الحمد لله رب العالمين مكان واييلو هل وين واييله كودي marka nimca la qabaa nimca waana iska maqal ku iska waxa weeye gudabadii weeyaan waa gufursiday waa gufursi xaga waa gudabadii bacda buugaaligu uu dhamaado uu qaaba marka waxa weeye gudabadii nimca la qabanayo waqti fara badan waa fara badan waa la soo maraya awaara fara badan waa laga soo baxa imika jawigu aad u qurux badan yahay nimca lagu jira walaal aad baa loo caan
ninkan odayga oo aan waqti badan qaadanay ayaan ogolayn in kamarada laga duubo hase ahaatee waxa uu ogol yahay in cod keliya aanu ku wada sheekaysano sheeko dheer ayaana dhex bartay sheekadiisiina waa tan iyadoo dhammaystiran fadlan muuqaalka markuu soo gaadho subscribe like iyo comment share garee lana wadaaga asxaabtaada si aanu halkan uga sii soconno aad iyo aad baad mahadsantihiin nabad iyo geli alxamdulilah wallaahi maasha allah ka warrab xaaladiina oo wacan nahado haa dee anagu fermiid hore dhaqataaba u nahado haye xilliga ay noogu wacnid weeyo laba isku beegmay haye iyo inaad fadhiga xooli cid ku lidee haa oo qaari garoobay haa iyo barwaaqo haye nimcaad joogteen nimcaan oo dhan haye hadda aan wax kala kuma fikirnay markii fermiiga adigu macaado inaan rafaano u haysto haa wariyo heede Hey. waxaan isleeyahay ayaan abaar dambe jees ku qabsan baana maxaad ka wadaa macna waxaan ku wadnaa gabadh labadeeda gubsan marka sibkii dhisho wax kale kuma habi imika xoolo ma iibisay hadda haa hadda waa iibinayo intaad iibisay dee nin waliba wixii arigiisa uu ka helayay haa ayuu iibi hadduu shaksiyan imsaad iibisay anigu waxaan iibiyay 750 neef wakeligaa 750 neef iibi haa islaanta adhi yaraan wehelu siiyey haa 7 uga dhacatola haye konta kaalaha 7 isaan talahay aafadoo waxaan jaan jacbaa fiisaray lacag intee la dufay shirkadaadu lacagtii inaan waa iska waxay dhacdo ilaa wuxuu ma taqaanaa markaasaa wixii kaaga baxay bogad tidhaahdaa bogad intaa abaar iskama soo kaca kufo xoolina maalinta taa in la kaa dhiib jirto ayuu odhi sabada bada habka idinina u ninaadeen hanti ka samaysta haye deegaankan imkaan soo dhaafnay hadda saacadda u imsadii habeenimo haa sagaalkii iyo 45 safarka aanu ku jirno annagu waxaanu soo bilownaa xalay 4 habeenimo ilaa xalay 4 habeenimo ilaa imika waan soconaynaa howdhe dee waxaanu ka nimi galbeed halka u dambaysa xagkaanu ku soconaa dhergele magaalada la yidhaahdo ciidii nagu qabsatay annagana dee dhulka ka warramayna adeer iyo xoolaha iyo dadka iyo dadku laba isugu jiraa in adeer haye nin soo guuray meesha la yidhaahdo gurxee waqooyi abaar baa ka jirta adiga magacaa cabdi raxmaan aadan rooble halkaad adu ma soo guurtaa tamse dadka deegaanka waxaanu nahay abab balacalalle balacalaad ka soo guurtay haye xaggaa rugmaanu ka diininaadeen la yidhaahdo waqooyiga dowladda haye laamiga wixii ka shisheeya waa abaar weliba way sii kala tahay meesha ay ku fadhiiseen haa qaybtiina way dhibto waa qiiq markaa haye waddanka uu soo galado showbunan iyo xeeb markaan xagkan joogdinta inay jiraan inta kilomitir 500 kilomitir inoo jiraan haye iyahow inaadeen raggu lagu isugu jiraayo haa roobkana gugani markii uu cugtay uu dusha ka helay iyo nin ku soo gurigiisii yaaro dibadgeedu soo baxeen oo ciirta ku rusho saxiinta ku cabay haye iyo nin inaadeen ku baxnaaniyey waqooyi oo heli waayadoo gaadhi ku soo rarado uskagii isagoo le ka rogay oo aanu roob dusha ka helin oo adhigiisuba macayn haa oo reeraha dariska ah ee la yaala caddayskii caana ay u geeyeen haa mid iska yar ladan oo saraar ka soo guuray oo adhigiisu iska wacan yahay haa ragga uun guba ka yimi baa raggaasna raggaa gubanne haa gaadhi markii uu ku soo tiiriyey wuxuu yidhi xaggee xoolo dhergayaanoo eegi uun buu gaadhay majooratigiisa waa dhaafa eegi halkan intay ka jirtaa dhergele marka la joogo 150 kilomitir 150 kilomitir lambarkana oo hawda oo Itoobiya oo dhulka oo inta abaar baa waday abaar oo shii berbera lagala soo wareego baa uu sheekh kula soo maro qurux la dhambalayo laamigu la cabayo wuxuu kala baydhay halkan bariiska qoryaalo ka soo baydho warcibraabku ka soo boodiyo qoryaalo dhulkan uu dhambalayo dee waa jiirsiyo gaari laba taarikoola baa sidee laba taarikoola sidee marka Itoobiyana ka cashuurno geli kara Soomaaliland ka cashuurno geli kara haa dee dabato gaadiidku waa saabtay haye raggaas ay dhaxayeen masjid haa dee guri soko ama soo guurta ama deegaankii hore ku badnaa waa weydaariyay barwaaqaas la dhiga
ما شاء الله barwaaqo 20 casho markuu u daaqo u cadeysanayo ayaa la dhigay hadii lahayd sawniga jilabka yaabay si waraabayalba wadada idin fadhiistay waraabu cararaya haye meesha bahalkeeda ka warama bahal walaalo maro dadka iska yaalo waa xilliga ay walaalo dhulka caana ma leeyahay haya daryeela waa tagin hadda la yaa inkastoo niyo baabuur yar burca ka tiyo dhimano laakiin rusalo in arko aad wadato kala caana doonaya meel arko burca caana u qaaday dadka caana ka iibsaday arrimaha kale diga kuwii ariga iyo kuwii galaba iibsaday bismillaahir rahmaan dalka dhigo arki doonta waxa xaajiyad iyo laakiin rusal caana qaaday shirka ma lagu raray iyagoo dhaydii la cunayay laba burca geeriye labada muqallabay labada sida baabuurtaas u dhaqaaqo waxaan sawiriyay tolo goorma la oranay qaar baa kan ku dhacay yaa say u dhaqaaqayaan baabuurtaas markay caanaha qaadanay u dhaqaaqayaan waxaad isqoraysaa soo duule wallahi casradaha gaariga sida lagu leeyahay wad yaawaysa caanaha asqeedaas u cararay oo dhanaanaya mid dadka ka kululaanay 3,000 shilin buu ka siistaa isagu haye ibrahim mooy wax lagu siiyo 12 mala ما صدق كل شيء صدق كل شيء بعد وهافو كل يوم وهافو استوى قلبي هذا كتير لودي ميدان هاي أنا واحد دوني متقنين هذا مقابلة هالشهادة كرون ميدانان كره ميلك تاد واحد حكستا ميدان كذا معلول واحد هذا ما تران ما لقوا قري أنا ورمي بان هوشن يا فرتن هدان وقاعدين وحنا هنا وحنا عنا ستات أبو بخريستا نيدلاف وين هاي نيدلاف نيدلاف واحد معناه متداف في نمرة إكسباير عشان يا فرتن تاني مرة نموت كي بتهاجم بيه لبوب الله يلا الله يا قريبي ولا قلبي عين واركال إلا تلبور لا كم تسولو جيسان halkan ma baydhayso Soomaaliland really ma baydhayso wadana kama baydhayso may maqli may maqli waxaan kugu soo dhaweynaa magaalada Dhargeelay waxaan ku leenahay saaxiib soo dhow aad ba saaxiib ma tantiin sida fiican ee deegaankan igu soo dhaweyseen raggan waa rag gob ah hilibkii iyo caanihii xoolihii wax kasta halkan baad ugu imanaysaa iyagoo free aan lacag cidi ka siinaynin wadad aad iyo aad u qalbi wanaagsan oo si kale arga ku sooriyeynaya saaxiibayaal halkan haddaad timaadaan deegaanada ha dhaafina deegaanada xoolo aad badan baa ku dhaqan waa deegaan jawigu ay naftu ku raaxaysan karto weeyaan madhadhaaliya hawdbaad mushmushaaxi lahaydo marsingeel ka cabayaad wax kamaali lahaydo miibaana qalweyn kaga moosi lahaa inagoo kala maarmin ma yahay maqashini bismillaahi raxmaani raxiim imika waxaan la joognaa geeli saad aragtaanba meeshan waxaa la dhahaa mareerka ceelmadoobey haddaayoo kale geelu wuxuu u jeestaa cadceedda u cadceedsadaa oo maadaama oo hadba qorraxdu xagga ka hayso geelu uu u jeesto maadaama xagga dambe uu ku leeyahay habeed oo ay gubayso markaa geelgu u cadceedsadaa labada gelinba gelinka horena wuxuu jeesadaa xagga qorrax ka soo baxa ka dambena wuxuu jeesadaa xagga qorrax u dhaca maadaama uu geelu xagga dambe safar kule geelu markaa u cadceedsadaa haddaayoo kale saynu aragno geelu wakaa xagga u soo wada jeedaa dhirta deegaanka ka baxda haddaynu waxyo ka yar sheegno way fara badan yihiin dhirta qura geed khaasi kama baxo waxaa ka baxaa ugu badan mareerka jilabka jeerinka biricilka quraca sidoo kale xodayga ka mida hoobtaa ka mida dhafaruurtaa ka mida geed marood oo dhan uu ka baxaa iyo geed midow oo dhan sida xagarka oo kale cawskiiba isaga ka baxo dheer dhirtii yareeda kale dhallaankeed baa ka baxda محمد قهرو